salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhowaada warbixin gaar ah oo aanu ku eegi doonno qaabka loo tababaro ciidamada gorgor sababta ka dambaysa in ciidanka Turkiga ay si hagar la'aan ah ay u tababaraan ciidanka gorgor waxaan ku eegi doonnaa warbixin markaasi meelo badan aanu ka soo ururinay xogo badan xambaarsan isla markaana aan isleenahay waa xogaha rasmiga ah ee shacabka la wadaagi karo ciidamada gorgor ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa loo tababaray qaab aan horay loo arag waxaana ay soo jiiteen indhaha caalamka iyo kuwa shacbiga Soomaaliyeed balse ciidamadaasi qaab kala duwan ayaa loo fasiray oo sifooyin kala duwan ay markaasi sababeen in looga falceliyo waxa loo tababaray ciidamadan maxay tahay sababka iyo ujeedka loo dhisay madano siyaasadeed ayaa laga leeyahay mise shacabka Soomaaliyeed ayay u adeegayaan maxay tahay sababta Turkiga ay u dhisayaan cutubyadan ciidamada gorgor si aan hagar markaasi ku jirin maxay tahay sababta ay shabaab ay ugu saari laayihiin ama ay ula wareegi laayihiin ama howlgalka ciidamada ay ugu biiri laayihiin ciidamadan gorgor su'aalahaasi su'aalo kala duwan ayaan ku eegi doonaa warbixintan fadlan daawade like saar muuqaalkan siina share gare lana soco warbixintan xambaarsan xogo badan oo sir ah oo ku saabsan ciidamada gorgor kuna soo dhawow janaalka Wama Media News magaceeguna waa Maxamed Ibrahim Karama ciidamada gorgor waa ciidan ka tirsan guutooyinka ciidanka xoogga dalka sababta keentay in si gaar ah loo hadal hayo ayaa ah in tababaro ay ka helaan dawladda Turkiga taasi oo u muuqata inay helaan tababar xooggan oo khibrad leh iyo waliba qaab casri ah oo ay markaasi ku howlgalaan ma jirto ilaa ay hadda tirada rasmiga ah ee ciidankan balse waxaa jira qiyaaso kala duwan waxaana lagu qiyaasaa inay gaarayaan 7,000 ilaa 5,000 oo askari waxaana lagu tababaraa gudaha Soomaaliya gaar ahaan xerada tababarada ee Turkisom sidoo kale waxaa loo qaadaa dalka Turkiga halkaasi oo ay ku soo bartaan ku dagaalamada hubabka kala duwan ee ciidamada dunida ay markaasi adeegsadaan waliba kuwada casriga ah shacabka Soomaaliyeed aad ayay u soo jiiteen qaabka loo dhisay ama loo tababaray ciidankan qalabka ay xambaarsan yihiin halka qaar kalena ay u arkaan in ay u adeegayaan dano gaar ahi sida aan la soconno burburkii ku yimid ciidamada xoogga dalka iyo waliba dhicitaankii dawladdii kacaanka ahayd oo markaa madaxweyne ka ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa tababaro ay ka heli jireen dalal badan oo kala duwan dawladaha Ingiriiska ayaa ka mid ahaa dawladda Uganda dawladda Kenya Ethiopia Imaaraadka Carabta iyo dawlado kale oo badan mana jirin hadal hayntan badan iyo falanqayntan ka imaanaysa dawladaha shisheeye iyo shacbiga Soomaaliyeed qaabka loo dhisay ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan waxa ay u muuqdaan in ay u socdaan si wanaagsan balse dawlado badan ayaa walaac ka qaba dhismaha ciidamada Soomaaliyeed ee gorgor iyo cutubyada kale ee danab haramacad gaashaan waran waaxyo kala duwan iyo talisyo kala duwan ayay hoos tagaan ciidankan qaabka loo dhisay ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan waxa ay u muuqdaan inay u socdaan si wanaagsan balse dawlado badan ayaa walaac ka qaba dhismaha ciidamada Soomaaliyeed ee gorgor iyo cutubyada kale sida danab haramacad gaashaan waran waaxyo kala duwan iyo talisyo kala duwan ayay markaasi hoos tagaan ciidankan aan soo sheegnay ciidamada gorgor taageero badan ayay ka helayaan shacbiga Soomaaliyeed qaabka loo dhisay iyo hanaanka quruxda leh ee ka muuqda balse shacabku su'aalo ay ka qabaan taasi qaarkood waxa ay isweydiinayaan maxaa loo howlgelin waayay ciidankan halkee loo wadaa Turkiga madano gaar ah ayuu ka leeyahay su'aalahaasi annaga oo ka duulayna sida ugu habboon ee aan u heli karno jawaab wacan ayaan baaritaanno iyo sidoo kale waraysiyo waxaan la yeelanay taliyaal ka tirsan ciidanka gorgor iyo dawladda Turkiga iyo Soomaaliya gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhiga Soomaaliya ee Turkiga tababaradii hore waxay u muuqdeen mid aan lahayn natiijo
rasmi ah reer markana ama dadka ku nool magaalada marka waxa ay ku naaneeseen ama ay markaasi tababaradaasi ay ku magacaabeen in ay yihiin raasha oo baasha oo micnaheedu yahay wad oo dhumi shacabkuna rajo badan ma aysan ka qabin dhismayaashii hore iyo sidoo kale iskudayadii lagu doonayey in lagu dhiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan macluumaadka aan helnay waxa ay yihiin in ciidanka gorgor guud ahaan aysan howlgelin oo ay la dagaalamin kooxda shabaab ee cadowga ku ah shacbiga Soomaaliyeed balse ay jiraan tiro yar oo loo qaybiyey xerooyinka talisyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jiidda hore jooga sababtuna waxaa lagu sheegay in ciidanka gorgor la qarinayo tiradooda lala ururinayo waxaana la sheegay in marka ay gaaraan 15,000 oo askari la doonayo in si toos ah ay gacanta ugu dhigaan amniga dalka oo ay kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM qorshayaal ayaa socda taasi oo dawladda Turkiga ay doonayso in laga qaado cunqabataynta saaran ee dhanka hubka ah dawladda Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed ayaa waxaa loo diyaariyey saad aad u badan oo xoog leh sida diyaaradaha qumaatiga u kaca miiga droniska kuwa marka lagu qaado ciidamada taangiyo hubab kale oo casri ah oo ciidanka xoogga dalka ka caawin kara in si buuxda ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab lana wareegaan amniga dalka iyo ilaalinta dhulka Soomaaliyeed dawladda Turkiga waxa ay diiday baaqiyo kala duwan oo ay markaasi ugu imaanayay dawlado kala duwan taasi oo markaasi doonayay in dawladda Turkiga ay joojiso dhisidda ciidanka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ay halis ku noqon karaan walaacna ay ka qabaan dhismaha ciidanka markaasi ay horboodayso dawladda Turkiga in ay dhisto ciidan tayo leh sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin horey xil ugu soo qabtay Soomaaliya oo markaa sheegay kuna eedeeyay dawladda Turkiga in ay wadaan howl aan dan u ahayn shacbiga iyo dalka intaba ciidankanna markaasi loo tababarayo dano gaar ah iyo shakhsiyaad gaar ah oo waxa ay farta ku fiiqeen qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah dawladda Turkiga ma waxa ay doonaysaa in ciidanka Soomaaliya awooddoodii ciidan iyo tababaradoodii halista ahaa ee cadowga ay ku baacsan jireen in ay soo celiyaan mise dano gaar ah ay ka leeyihiin adiga daawade maxay kula tahay ciidamada Soomaaliya qaabka hadda loo tababarayo amniga dalka ma lagu aamini karaa jawaabtaasi daawadayaasha Wama Media News ayaan u deenayaa sidee kula tahay daawade ka falceli oo maxay kula tahay commentiga hoose nagu reeb fadlan daawade hadda like saar muuqaalkan oo iminka sii share gare si aan idinku soo gudbino xalqooyinka ama sheekooyinka ku saabsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana muuqaalkan iyo sheekadanba idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Ibrahim Karama waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaano Allah iyo sidoo kale dalkii oo nabad ahi